talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacad sooyaalka haygu talo qofku waa uu bukoon karaa oo waa jecel waa uu la jiran karaa shalaytiyo dadku way sameeyaan maxaan u sameeyay noloshaadii hore gocasho qofku wuu gocdaa wax weyn ma ahan laakiin waxa maanta aniga aan rabay in aan ku weydiiyo waxay tahay abaayo macaan maxaa kugu kalifay in aad bartaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta nagu taxan kaaha nolosha dunida dacaladeeda meel walba aad ka joogtaan waxaan idin leenahay maalinta ha idin wacnaato akhyaarta cusub nagu soo biirta waxaan idin leeyahay aad ayaan mahadsantihiin kusoo dhawaada channelku waa channelkiina inta kaleetood ee hawada nagala socota weli subscribe-ka aana siin waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe-kana siisaan wixii fariimo oo aad qabtiinna aad qaybta hoose aad inoogu reebtaan haddaba aan u gudagalo barnaamijkayga maanta waxa uu ku salaysan yahay muuqaalo fiidiyoyo ah oo aan ku arkay barta tiktoka kuwaas oo ku saabsan gabar fanaanad Soomaaliyeed ah oo iyadu xaalad dareen emotional ah xaalad niyad jab ah ku sugan in aan fariimo dhiirigelin ah iyo niyad dhis intaba aan halkan uga diro haddaba intiini soo aragtay tiktoka ku soo aragtay fanaanada Fawziya Ifka maalmihii la soo dhaaf waxay ku sugnayd dareen xanuun badan dareen ku saabsan niyad jab iyo xaalad ay bilooyinkii la soo dhaafaba ay ku jirtay intiini badan hore u ogeyd iyo inta aan ogeynba Fawziya Ifka guurkeedii wiil ay isjeclaadeen oo qabiiladooda markii hore ay dagaal iyo buuq ka keeneen muddo sheekadaasi ay socotay kadib waxaa dhacday in qoyskii uu burburo burburka ku yimid qoyskaas kadibna in gabadhi ay niyad jabto runtii xaalad emotional ay gasho taasna ay kalifto in maalin walbo fiidiyooyo niyad jab ah oo ka muuqato murugo ka muuqato inay soo dhigto barteeda tiktoka haddaba hadalhaynta ugu badan ayaa maanta iyo shalab waxa ay ahayd fiidiyooyadaasayta muuqaalka oo Fawziya Ifka ku saabsan oo ay soo saaraysa heese calaacal ah iyadoo dareen aad u qalbi jab ah ku jirto taas waa tan koowaad tan labaadna waxaa sidoo kale aan rabaa in aan dadka iyada xaaladaas oo kale xaaladda faa'iiso ee ku jirto aan rabo in aan fariin ugu gudbiyo marka hore aan ku hormaro fiidiyooyada emotionalka ah ee Fawziya Ifka Fawziya Ifka tiktoka qabsaday iyo dadka qaabkay uga falcelinayeen horta dadku bini aadanka waa shanta farood oo Ilaahay ma simin qof walbana garaadkiisa ayuu hadlaa dadka waxaan ku arkay qaybaha commentska in dad fara badan oo aad u qalbi fiican ay fariimo ducaa iyo niyad dhis ah halkaas ay ugu gudbinayeen oo ay gabadha waaninayeen oo ay u duceynayeen in xaaladda ay ku jirto ay ka baxdo waxa kaloo intaas sii barbar socday dad ayagu tiro kooban ah oo bilaabay in ay background ahaan usoo qaataan amaba ay ku dhaga hadlaan gabadha xaaladda ay ku sugan tahay ayagoo ku diganaya dadkaas waxaan leeyahay sideedaba xaalad qof maanta uu ku sugan yahay haddii aad adiga rabtid inaad ceeb uga dhigtid adduunyada waxaa la yidhi wareegtaa waa silsilad maanta Fawziya ay taagan tahay beri adigay kugu imaan kartaa marka saas darteed wax aad uga digataa qof dhibaato haysato murugo haysato maba jiri kartaba taas waa taas tan aan raba Fawziya in aan kala dardaarmo waxay tahay amaba gabar walba oo Soomaaliyeed aan u sheega waxay tahay horta bahalka la yiraahdo jacaylka amaba burburka qoyska dhibaatooyin ayuu leeyahay dhibaatooyinkaas dadka qofba si ayay maxay ahayd ay uga kabataa qof bay ku qaadataa sanado bilooyin in uu xaaladaas ku jiro murugo iyo tiiraanyo ku jirto qofna ciyow ayuu intuu isxakameeyo uu ka gudbaa uu ka tallaabaa laakiin hadda waxaaba intaas dheerbo waxaa soo baxay social media oo dadka noloshooda caadiga ahay qayb ka mid uu noqday misaal ahaan maanta haddii aan faraxsanahay inaad dadku dhan ay wada arkaan inaan faraxsanahay oo aan dhaho waa armaan faraxsanahay haddii maanta aan murugeysanahay maanta inaan murugeysanahay dadku dhan ay wada arkaan runtii taasna waxay noqotay caqabad aad u weyn waayo dhaqdhaqaaq kasta noloshaada ama xaalad kasta oo noloshaada ku saabsan in ay qof kula ogaato run ahaantii aniga ma jecli
mana taageersani waayo waxay keenaysaa midda hadda maanta taagan oo kaleetood iyo kuwo ka daranba. Fawziya ifka abaay waxaa tahay gabar caane, waxaa tahay gabar hooye ah sida aan maqlay, waxaa tahay qof weli nolosha u cusub tahay. kuma dhahayo ha murugoonin, waayo qof walba oo bini aadana wuu murugoodaa, shaydaan ayaana murugoonin. abaay macaanto iska ilaali social mediaha inaad adigoo murugaysan aad soo gasho, waayo sida aad hore u sheegtaba waxaad leedahay cadow fara badan, waxaad leedahay dadku jecel oo xanuunkaaga ay saameynayso oo ka damqanayo. wixii maanta adiga kugu quseeyo oo khusuusiyaadkaaga ah isku day in aad xakamaysid oo aadan soo duubin fiidiyoyadan tirada badan oo murugada ah oo niyadjabka ah. ilaahay subxaana watacaala waxaan kaaga baryayaa inaa wax walba aad jeceshahay inuu ilaahay uu ku siiyo, laakiin ogow maalin walba wax walba oo aan jecelnahay ma helno. marka saas darteed waxaa fiican inaad noqotid qof ad adag oo xakameyn karo noloshiisa, xakameyn karo iskana hilmaam dareenka ah qofka bini aadanka in qof hebel la-aantiis ma noolaan karo. qof walbo wuu noolaan karaa qof kale la-aantiis. tusaale ahaan ilmahaaga ayaa hooyo la-aan noolaan karo haddii ilaahay ugu talagalay inay sii noolaadaan. macada lahay qof weyn oo adigoo qurux badan oo labisan oo heer glass ah aad is aragteen la-aantiis waad noolaan kartaa. hadda adiga maba kaa hayna, maalmihii lasoo dhaaf waxaan arkayna dad ma noolaan, wiilal dhalinyaro waxaan arkayna dhahayaan ma noolaan karno. marka abaaya macaan ha ka shalaynin noloshaada hore wixii ku soo maray, ha u jabin cadowgaaga, hana niyad jabin, waayo guurka sidiisaba waxaa la yiri waa god mugdiya adoo gacanta geliyay, wax walbaa kaaga soo bixi karo. sida adiga aad hore u sheegtayna waxaad tiri dad baa dhexdeena weerar iyo weerar celis ka hayo. marka dadkaas hadda maanta adiga markaad ooyintaada ay arkaan fiidiyoyadaada ooyinta, fiidiyoyadaada murugada, faa'iido weyn ayay u tahay, waayo dad waxaa jira dadka xanuunkooda ku farxa, aad u malaysid in ay wax kasbadeen markay arkaan qof kaleetood xanuunkiisa markii ay daawadaan. marka abaay macaan waxaa kuu fiican in aad fiidiyoyadaadaas aad xakamaysid. tan labaad waxaa jira wax aad sharaysatid balse qeyr kuu ah oo aadan ogeyn. saas darteed si aad ugu gudubtid marxaladan hadda aad ku sugan tahay, waxaa ila wanaagsan aniga in aad iska baabi'isid wax walbo oo qofkaas ku xasuusinaya, wax walbo oo isugu kiin darnaa in aad kala saartid. ka bilow gurigaaga, moobeelkaaga gacanta aad ku haysatid, ka bilow wax walbo oo shaqsigaas quseeya tirtir, ka saar meesha. wax walbo oo guriga kuu dhex yaalo oo aad wada wadaagteen iska bedel. marxalad walbo oo meelihii aad isla tegi jirteenna ilaa jawgan hadda aad ku jirtid aad ka bixaysid, ka fogow. taas waa taas. tan labaad waxaan ku leeyahay waxaa tahay qof bulshada ay taqaano oo bulshada dhexdeeda caan ka ah. marka farxadaada ayaa mar walba dadka farxisa, ma fahamtay? farxadaada adigoo qoslaya, adigoo wax jilaya, adigoo heesaya, marka adigoo ooynayo oo ay kaa jajaban tahay, adigoo cariiri dareemayo, waa laga qurux badan yahay inaad dadka la wadaagtid. qof walba wuu soo maraa xaaladaas murugada, dadka walbaa dareema, qof walbaa murugo dareento, laakiin haddana waxaa fiican noloshaada gaarka kuu ah in ay kuu ahaato mid adiga qaas kuu ah oo aadan qofna la wadaagin. wixii gurigaaga dhexdiisa adiga maanta kugu qabsado ha la wadaagin qofna, wixii dareenkaaga ku saabsan ha la wadaagin, waayo dadkoo dhan kuguma wada farxaan. haddii aad faraxsan tahay oo aad qanacsan tahay, dad ayay dhibaysaa qanacsanaantaadaas. social mediahana soomaalidan wuxuuba noqdayba cudurka ugu xun ee halista ah dadku ay isqabadsiiyaanba, waayo waxaa soo batay in dadka qaarkood farxadooda xataa aan lagu faraxsanayn. dad isku faraxsan marka la arko dad baa dhibsada. qof xanuunsan oo dhibaataysan oo ooynaya, dad baa ayagana ku diganayo oo dhibaatada qofkaasayti ula muuqataa inay farxad iyo wax ay ka qaadayaan. sidaa daraaddeed Fawziyo abaayo waxaan ku leeyahay fiidiyoyada aad soo dhigatay tiktok oo dhan iska baabi'i, iska tirtir haddii ay suurtagal tahay. waa waano walaal, iska tirtir waxaasoo dhan, qashinka ku dar. ha soo duubin fiidiyo dambe adigoo ooynayo, waayo ama adigoo murugaysanba xitaa ha soo duubin, waayo maxay ahayd noloshaada gaarka ah iyo tan publica kala saar. waxay taas fursad u siinaysaa cadowgaaga qof walba inuu noloshaada soo farageliyo
qof walbo aan talo kugu lahayn xitaa aniga igu soo darbo ima taqaanid anigana adigoo meelaha ka heysayaan ku arki jiray maanta intaan soo fadhiistay waxaan rabaa inaan adiga talo ku siiyo marka taasoo kaleetoodoo dhan iska soo duuduub adigoo faraxsan waa gooni adigoo murugaysan oo noloshaada dhibaato ku haysato hala wadaagin bulshada adiga kaliya kuma qusaysa taas waxay la qusaysaa qof walbo oo asaguna xaalado noocaas oo kale ay haysta intaas waa iga talo waxaa idin leeyahay xanuunka qalbiga iyo dulqaadkiisuba iyo marxaladaha looga gudbo qof walbo waxa ay ku xiran tahay adeegiisa iyo sida asaga uu ugu talagalay inuu uga gudbo haddii aad tidhaahdid aniga kama dhaqaaqi karo booska amaanta ku jiro isma caawin karo qof bini aadan oo ku caawin karta ma lahan marka haddii adiga aad ugu talagashay in aad ka gudubtid marxalad kugu adkaatay mas'alad dhibaato kugu noqotay haddaba ku dhaqaaq ha sugin daqiiqada soo socda ha sugin ka bilow gurigaaga ka bilow noloshaada ka bilow wax walbo aad gacanta ku haysid oo isleedahay waxa uu qayb ka yahay xaaladda aad ku jirtid marka intaas waa iga intaas waxaan asxaabta igu xigtaan ayaguna leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida aad barnaamijyadeena ula socotaan dadka igu cusub nagu soo biira waxaan leeyahay welcome soo dhawaada janalka waa janalkiina waa janal ka hadla arrimaha bulshada iyo nolosha caadiga ah hore usii